السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت كسر هذا كنال كيني عبد شكور كنال أوديو براتين دروس كسابسين أي تيجا هي إنترنت كا درسي كنا ما تروح كسابسين هاي security كا دنك security كا وحين نكسر قالنا router security مركا دنك وحين كو إيجي دور ناس هذا بدن كبار تقانان wireless يدا أما wifi يدا router هذا مركا لصور بيكتبويها dadka waxa isticmaala dadka charka inay isku dayaan software fara badan inay isticmaalaan si ay u helaan oo ugu dadaalaan inay helaan passwordka routerkaaga marka anagoo taa ka ilaalina oo ku xafidayna internetka iyo xuquuqda dadka waxay aqadeena ku saabsan tahay sidii security-ga aynu profile gareyn lahayn security-gana aynu ilaalin lahayn qofka charka-ana aanu u heli lahayn passwordka marka dabcan habkan aynu isticmaalayna waxa weeyaan haddii aad u sheegto passwordka qofka charka ah even isagoo sax aad u sheegto oo tira passwordkayga routerka waa kaas uu geliyo mobilkiisa uma soo qabanayo internetka mana geli karayo waxaan filayaa inuu idin cajabiyey mawduucani ha ka fogaan marka xalqada haddaba marka ugu horeysa waxaan doonaynaa inaan ogaano waa maxay MAC address. MAC address device kasta oo shirkadu soo sameeyaan ha noqdo mobile ha noqdo computer ha noqdo iPad ha noqdo iPhone anything ama device kasta oo soo sameeyso oo shirkadu soo sameeyso waxa uu leeyahay number loo yaqaano MAC address. MAC address kaasi waa kaarka loogu talagalay in uu network ku xiriiro device kaasi. For example, haddii computerkaaga waxa ku jira card la yiraahdo network interface card. Cardkaas waxa loogu talagalay in uu computerkaaga ama device-kaagani uu kula xiriiro device-yada kale through the network. Marka device-kaas number ayuu leeyahay, numberkaas waxa la yiraahdaa MAC address. طبعا numberka MAC address-ka wuu ku kala duwan yahay device kasta ama device-ka kale. Hadda MAC address-ku waxa uu ka kooban yahay 12 digit oo min laba god ah 12 god ayuu ka kooban yahay oo 12 letter oo xuruuf iyo number isku jirta si kala marka loo eegana waa 6 god ayuu ka kooban yahay marka waxaana u dhaxeeya dhibcaha loo yaqaano colons haddaba sidee u helaysaa computerkaaga MAC address-kiisa waynu u baahanay inaan isticmaalno MAC address-ka computerkaaga waxa lagu heli karaa in aad Windows 7 hadduu yahay Windows 8 iyo meel kasta start ayaad qabanaysaa barta search-ga ama run ayaad tagaysaa intaad Windows 7 ku qorto run ayaad kadib waxaad leedahay cmd ilaa Windows 8 kadib bartan baad waxaad ku qoraysaa ipconfig/all kadib waxa ku soo baxaya dhammaan IP configuration-ka halkan kugu jira dabcan waxaad imanaysaa barta ku qorantay wireless LAN adapter Wi-Fi barta ku qorantay wireless LAN adapter Wi-Fi kadib barta ka hoosa waa ka kugu qoran MAC address-ki computer dabcan waa ka MAC address-ki computer-kayga barta ka yaala MAC address-ka computer-ka haddaba waxaa jira software aynu u baahannahay inaad soo download garayso oo la yiraahdo wireless network watcher software-kan waxa uu ku sahlayaa in dhammaan network-gaaga ama router-ka aad shiday ee wireless-ka cidda ku xiriirsan oo dhan uu ku soo taxo MAC address-yada numberada MAC address-yada halkan yaala imika waa laba mid waa kii router-kayga MAC address-kiisi iyo computer-kayga course imika computer-kayga oo qura ayaa ku xiran router-kan cid kale lama isticmaalayso internet-ka so barnaamijkan wuxuu ku sahlayaa in device kasta aad soo simple ah u hesho MAC address-kiisa maadaama aynu u baahanay waxa la yiraahdaa wireless network watcher link-kan waxaan ku dhigi doonaa video hoostiisa ka soo download garee waxaad ku dhufataa sign in with Google kadibna email-kaaga geli Google aad ku leedahay Gmail oo kale for example ka bacdi marka link-kan uu soo diray link-ka ku dhufo oo ka download garee bartaasi طبعا marka soo download gariso router-ka caadiga ah inta router-ka sayn hore soo sheegnay 192.168.1.1 ayaa lagu galaa router-ku nooc doonaba ha noqday ka bacdi waxaad ku galaysaa admin username-kana admin password-kana admin waa default-ga xalqad hore ayaan ku soo daawanay tabta loo helo password-ka default-ga router-da xalqada hore ayaad ka go'an doontaa kadib maanta waxaan tegaynaa bartan ay ku qoran tahay advanced ayaad tegaysaa kadib waxaad leedahay MAC filtering ayaad sii tegaysaa halkan soo if you enable MAC address
access control mode waxa lagu yiri MAC address-ka haddii aad enable garayso bartan oo sax saarto enable tiraado hosts with MAC address containing the access control list allowed to access to the router macnaheedu wuxuu yiri haddaad halkan saxda saarto kadibna MAC address iyo bartan ku gurto MAC address-yada aad ku gurtay uunba internet-kaas helaya dhammaan MAC address kasta oo kale ma helayo marka waxaad u baahan tahay wireless network oo jarka si simple ah markaad ku install garayso waxaad leedahay bartaas ayaad taabanaysaa wuxuu kuu soo taxayaa dhammaan MAC address-yada ku xiriirsan computerkaaga sad bartanka aragto uu tirinaya MAC address-yadii oo dhan ayuu baaraya kadib 192.168.1 waa computer waa routerkaaga ka kalena waa computerka magaciisa ku qoran device-yada dhan buu soo taxaya just waxaad u baahan tahay device-ka MAC address-kiisa inaad soo copy garayso oo tiraahdo copy selected item kadibna word-kaaga aad furato ama notepad wixii aad heshaba ka bacdi bartaad ku paste garayso kadib only waxaad sameynaysaa MAC address-kaaga bartaa yaala aad soo copy garaynaysaa markaad soo copy garayso MAC address-kaas waxaad la imanaysaa routerkaagii la imanaysaa add baad dabeeta leedahay MAC address-kii baad bartan ku paste garaynaysaa MAC address-ka waxay columns baa u dhexeeya laba dhibcood macnaheedu tahay marka bartaa slash-ta dhibcayaad ku bedelaysaa kadibna apply baad leedahay now hadda routerkayga waxaan u sheegay MAC address-ka aan siiyey inuu internet-ka siiyo dhammaan MAC address-yada kale oo dhan ama device-yada kale ha noqdo mobilada guriga yaala ha noqdo waxyaabaha kale oo dhan internet-ka ma helayaan si kastoo noqotoba saas ay internet-ka ku weynayaan dabcan waa habka ugu fiican ee ku secure garayn karayso routerkaaga haddii aad u baahantahay qof kale oo family-ga inaad ku soo darto oo aad u ogolaatay isna internet-ka inuu helo kaliya ta mobile-kiisa hadduu mobile sito mobile-kiisa setting-giiska tagaysaa about phone ayaad oranaysaa kadib MAC address-ku bartaas ku qoran yahay MAC address-ku waa noocan ayuu qoran yahay lixda gud waad soo qoranaysaa kadib isagana halkan aad gelinaysaa liiskan intaad aad tiraahdo kadib isagoo internet-ka u helaya laakiin qof kale haddii password-ka xataa ciyaalku sheegaan anyway ma helayo internet-ka ma isticmaali karayo isagoo password-kii u sheegay ayuu ku oranayaa laguma ogola internet-kan inaad access garayso hadhow haddii aad rabto maalinaad dadka u wada ogolaato halkaas unbaad sax ka qaadaysaa kadib dadkii oo dhan buu iskaga wada ogolaanaya password-ka cidaad u sheegtaba waa ogolaanaya laakiin haddii aad rabto maanta inta guriga in isticmaasho qura halkii unbaad sax saaraysaa simple habkan waa habka ugu fiican ugu secure-san haddiiba aad rabto in aad ka maarato liisyadan ood gebigoodaba delete garayso saxa ayaad midho saaraysaa maaha waxba liis 10 ay yaalin 10 kama moodaa saxaysid mid ka mid aad saxa saaraysaa delete ayaad leedahay MAC address-kan okay na waad siinaysaa kadibna waad ka delete garaysmaa in yar ayaad sugaysaa intuu routerku iska delete gareeyo markuu iska delete gareeyo sida caadiga ahayd ayuu routerkaaga ku soo noqonayaa intaas ayaan kusoo koobaynaa xalqada maanta ee security-geena ku saabsan inta xalqad kale ku kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh